ururka taalibaan waxay ku soo laabteen awooddii dalka afghanistaan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afgembisay dowladda maraykanka iyo xulufo reer afghanistaan ah oo isbahaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee alqaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada new york oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof bishii sebteembar 11 sannadkii 2001 ku soo noqoshada taalibaan ee awoodda dalka afghanistaan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ogolaatay bixitaanka maraykanka dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada afghanistaan taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midooda afrika ee amisom ka baxaan dalka cumar maxamed abo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab haatan waxa uu ku nool yahay dalka sweden oo uu ka tegey markii uu ku biiriyey ururka al-shabaab farqi u dhaxeeyo taalibaan iyo al-shabaab taalibaan markuu horeyso waxaa hogaamiyo culamo al-shabaab way bahdilaan culammada bal way dilaan culammadii markay u naseexayaan waana ogtahay waxa ku dhacay qadir gacmey doctor axmed iyo ragga la midka ahay talabaad taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti halkii al-shabaab culammadii soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxan raadinayo tan saddexaad taalibaan wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata ta afraad taalibaan waa niman ujeedo fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halka ay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen bis tusaale hataa kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah al-shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyay 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkay ummadii si wanaagsan ku dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxaana wa tacaala gacantooda oo ka bixiyay dhulkii haysteen xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda kamakunji ee soomaalidu degan yihiin yuusuf xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka afghanistaan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay muddadii uu ka shaqaynayay dalka afghanistaan yuusuf xasan waxa uu ku hurgalay dhaqanka dadka reer afghanistaan iyo kan taalibaan oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda afghanistaan xildhibaan yuusuf xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo soomaaliya iyo afghanistaan iyo taalibaan iyo al-shabaab runtii marka ugu horeyso afghanistan iyo soomaaliya aad iyo aad bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid a afghanistan sida dadkan pashtunka oo kaleeta ee bakistan iyo afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka soomaalida xagga reer guuraannimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarrayso qarannimada iyo wadaninimada laakiin haddana markaad isbarbar dhigto talabaan iyo al-shabaab iyaguna way aad bay dhan isaga kala duwan yihiin talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeen dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka afghanistan wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane waxa weeyaan dhaqanka iyo diintu sidii u ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid mabaadi'doodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkoodao dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan ma filanayo sida ay u eg tahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye markii ugu horreysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midowda soviet run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto midowda soviet kama soo waaqsan jabkii ka gaaray dalka afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaaxidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowda soviet halkaasay ku baaba'day quwaddii midowda soviet ee ahaa qaranka koowaad amase kan labaad adduunka ee la tartamaya maraykankana markaasaa ugu dambaysay markii dambena haddee quwad kaleeto aada u weyn oo ah maraykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan maraykanka uu ka cararay isagoo kobala kaga tegay magaalada kabul maalin dhaweeto sida aan u arkeyni su-aasha la isweydiin kara waxay tahay shabaab iyo taalibaan labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismiidaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan su-aashu waxay tahay
ma u diyaarsan yihiin taalibaanku inay afghanistan maamulaan sidaasoo kale shabaabku ma maamuli karaan soomaaliya? anigu waxaan u soo joogay oo naadawaayo arag ka ahaa maamulka talibaanka ee afghanistan. talibaanku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen. suuqagu way furnaayeen. meesha suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tagi jiray. salaada marka la gelayo dadku salaada ay u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tagi jireen. marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya maalan waxbaad dukaanka ka iibsanaysaa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysaa. laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabad ay ahay. markii aan ku soo noqonnay Maraykanku ay rideen taliskii talibaanka, waddankoo dhan burcadnimo iyo tuuganima ka dhacday. magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay. argagixisa ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahar baabuur kuma tegi karin amase Jalalabad. waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. marka anigu kuma soo noolaan maamul al-shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan. laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo talibaanku aanay weligood samayn. talibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. hataa dagaalkii weerarkii Maraykanka ay kusoo qaadeen 2001 weerar gardaruu ahaayo wax hal afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Maraykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. kini markaad eegto al-shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibadiisa. markaad eegto meelo badan oo aanay deganeen oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood. taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahda yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda ka soo duulay al-qaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geysta caalamka. khaladaad bay sameeyeen. haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharbuudaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha, taasi way ku khaldanaayeen. khaladka ay sameeyeenna, gafkii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladeedyo badan bay sameeyeen oo ma odhanaya anigu talibaanku waa sax. waxaan isbarbar dhigayaa waxa ka jira talibaanka iyo meelaha kale. waxaad odhan kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. laakiin hadday way aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawaca u geysanaya, waayo weligood Maraykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan. dadkuna way daalan yihiin oo way tabaalaysan yihiin. wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 oo askari. ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 oo askari. ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Maraykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 oo askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeyay kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan al-shabaab? gaashaanle sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab. ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtidba maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. hadda markaa isbarbar dhigtid awal dhimashada haddaa fiirisid amisom ba aad u badnaa, ama qarax hadday ku dhintaan ama bulshada maaragtay. maantana waxaa weye ciidanka Soomaaliyeed kuwa howlgalada qaada haddaa u fiirisid ma isku dhowo. ciidamada Soomaaliyeed ba aad u badan. marka haddii amisom ka baxaan runtii waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaaranayo
laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha. hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalidu welina cunaqabatayn baa saaran Soomaaliya marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo? waa runta anaga cunaqabateen baana saaran helicopter saas ma haysano diyaaradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano laakiin ciidanka infantryga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid isku hubba haystaan waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed laakiin tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlayaa hadda tusaale oo kale markay Mareykanka ka baxeen dad badan baa waxay isdhahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragtaa hadda si fiican bay hooshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgaladooda way sii badiyaan wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta koylatanaad iyo danabbo iyo ciidanka maamulka xagga daraawiishta sidoo kale wada shaqayn fiican baa ka dhaxaysa wana shaqaynayaan wax amisoon maaragtay oo gacan siinayo ma jirto. waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in al-shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amisom baxaan. xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya. taasi shaki kuma jiro waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha ciidan isku duuban ma aha waa ciidamo qoys ka kala yimid oo isugu yimid qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. maalin dhowtaabad ayaad arki kartaa maalin dhowto markii magaalada Muqdisho la isaga hor yimid ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo amase wadanimo dheeraad oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadanin inay ku jiraan laakiinse runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. ciidamo la isu soo ururiyo tababar fara badan la soo siiyey oo hub fara badan la soo siiyey bay ahayd 300,000 bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. laakiinse moogtahay dagaalku waa qadiyad haddaanay qadiyadanad u dagaalamaynin qof shaksi uma dagaalami kartid marka noloshaada ay xiriiri gasho waad iskaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. marka ilaa ciidamada Afghanistan ma gaarin heer qarannimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda. marka anigu shaki igama jiro haddii xoogag shisheeye amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guulaysanayaan ciidamada al-shabaab sababtoo al-shabaabku way isku duuban yihiin way midaysan yihiin hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan shaksi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan. khubarada ka faaloonaya awoodda soo noolaata ee Taliban waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taliban ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadaladii Taliban oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana Soomaaliya ka saarayso ciidamada midowga Afrika. xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan. walaahi taasi ima muuqato sababtoo Talibanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan meelna way kala duwan. magaalo kastoo Afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lug ku leh arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale. Talibanku ma farageliyaan shuurada waxay goysa ayay fuliyaan. marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karta oo oran karta bal dood waan siyaasadeed aan galno ma jiraan. madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo. way xoog badan yihiin waanay jiraan laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaarayso tan Taliban waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka. Pakistan ha ka jireen hataa Iran ha ka jireen bariga dhexe ha ka jireen dowladahan Qatar Imaaraadka Sacuudiga waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo lala shoori karo madax lala shoori karay leeyihiin. marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto ama se ay ka fikirayso. ayagu waxaan u malaynayaa wadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobolada ay joogaan wixii kaleeto ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culeys badan ma ay saareen xagga siyaasadda iyo diblomaasiga. marka ay markaa usoo jeedsadaan xagga diblomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xiriir la yeeshaan xibnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadaheeda
ayaa laga yaabaa in ay suurtogeli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee talibaanku ay qaadeen. haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka afghanistan? maxaa qalad dhinaca istiraatiijiyada ah ee dowladda afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda soomaaliya? gaashaanla sare axmed cabdulaahi sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya. waxaan u malaynaya cashar waxaa noqon kara in heshiiska waxaa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo maraykanka uu hogaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaada iyo facilitationkii oo ay sameeyeen qatar. labadaas arrimood waxaan u malaynaya cashar inoo tahay inaan haddii oo in wada hadal lala galin qoladaas xaq jirka ah al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida maraykanka weliba iyo qatar in maaragtay howshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas. sababta ah wax oo heshiis oo hal dhinacay ahayd waxaa keliya oo ka faa'iiday waxay ahayd talibaan baa ka faa'iiday arrinkaas. dowladdii afghanistan qayb weyna kama ahayn marka in hadda waa la hadal hayaa marmar su-aalo badanaa laisku soo qaadaa wadahadal ma lala furi kara shabaab. ani mar walba su-aasheeda waxay tahay maya, aan jawaabteeda waxay tahay maya. marka arrinkaas in laga fiirsado ani qabaa sababta ah sidii hadda heshiiskaas iyo wadahadalkaas u fashilmay mid lamid ah inaysan dhicin taas casharna noqon kartaa. ka hor inta maraykanku aanu kala soo bixin soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore, christopher miller oo markii dambe noqday kusimaha xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka waxa uu isku dayey inuu wadahadal la galo ururka al-shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo. sidaasi waxaa tabisay jariidadda new york times. maraykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka qatar, hase yeeshee arrintaasi waxa ay ka dhicisooday isla dhinaca maraykanka sida ay tabisay new york times. inkastoo ururka taalibaan ay sheegayaan inay oggolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho waddamada shisheeye, khubaradu ma aaminsana inay taasi ka suurtogeli karto ururka al-shabaab. al-shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah. sidoo kale al-shabaab ma oggola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka howlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool. dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan. hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtogelin inaan ku helo khadka telefoonka. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.